waxaan ogsoonahay wadada aan hadda taaganahay ee wadnaha xilligii aan dhismahan aan lagu samaynin waxay ahayd wada aad u gaban oo dadka aad ugu dhawaato badan yihiin dawaaradana ay dadka markay saaran yihiin ay madaxa ku garaacdaan markay gudadka oo baabuurka ku dhaco waxaan ogsoonahay meeshaan waxay ahayd aan joogno meel aad diidayeen waa ay baabuurka ka dhaxayeen xaafadaha ay ku jiraan taasoo ah meel qabreed badan tahay maanta waxaan maraynaa horumarkan aad u wanaagsan ee aad u badan kaasi ay ka shaqeeyeen shacabka Soomaaliyeed ee iska kaashanayaan in ay wadankooda dhistaan waxaan ogaanaysaa wadan walba waxa isbeddelkiisa wadanimada soo dowladda lagu sheegayo dadka waxaan aaminsanahay haddii ay shaqeeyaan si Soomaalinimo ah iyo sida wadanimada ay hadda u shaqeeyaan haddii sii wadaan waxay gaari karaan waxay la socon karaan adduunyada iyo wadamada kale ee caalamiga ah marka waxaan leeyahay aan kula dardaarmayaa shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada inay hawshaasi ay dadaalka si laba laabaan dadaalka quruxda badan oo wanaagga badan oo sharafta badan la gaareen haddii ay si laba laabaanna waxay gaari doonaan midda wadamada ay kale ay gaareen haddii Ilaahay yiraahdo aad ay u mahadsantiin waan idinku amaanayaa hawsha adag oo wanaagsan oo quruxda badan la qabateen waxaan ku weydiin lahaa laamigan sida loo dhiso quruxda badan leh dadka isku dayay in laamigii dhaxay bartamaha ay jiraan tubo mariyaan ama koronto mariyaan maxaa ku tali leh kula tali lahaa laamiga lacag badan baa la geliyay intaas milyan baa la geliyay hadda inta milyan in hadda dhibaato loo sii jeesto oo hadda la diidiyo oo laamiga dhibaato la sii gaarsiiyo waxaan kula tali lahaa in aan la samaynin qalada samaynaysa in ficiliyaan shacabka caawa laga bilaabo shacabka waxay u amar u qabaan inay ficiliyaan ayagoo ay ugu celinayaan muwaadinimadooda ayagoo ay isugu badawlad iyo qof askari inuu jecelnahay ayaga ay jeceliyaan ayaga askariga ah ayaga wadanka iskale ayaga muwaadiniinta muwaadin walba waa inuu ka celiyaa dhibaatooyinka lagu qabanayo dalka su'aasha ugu dambaysa ku weydiin lahaa dadkii oo deegaanka maxaa kula tali leedahay haddii ahaa leedahay xagga nadaafadda iyo dadka deegaanka waxaan kula dardaarmayaa hawshu waa soo dhawaatay wax badan baa laga qabtay inta kale oo yarna inay sii dhammaystiraan ayagana ay maadaama hoo laga qabtay inay hawsha dhammaystiraan ayaan kula talinayaa waxa yaroo wasaqda iyo carrada yar ee hadda meesha yaalan ay ka nadiifiyaan aad ayay u mahadsan yihiin waa maasantahay mudan